بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan daawaday laba markale iyo muuqaal kale oo aan ku soo gudbin doono xogtii ugu dambeysay ee go'aayihii wacdaraha ka dhigay koobka gobolada Yusuf Lambasa sida loo socotaan Yusuf Lambasa ayaa ahaa go'aaye aad uga dhex muuqda ciyaarihii koobka gobolada waxaanu soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan gaar ahaan markii ay la ciyaarayeen gobolada Togdheer iyo Kabylie kuwaasoo awoodi waayay inay wax goola ka dhaliyaan balse ugu dambeyn xulka Daadmareed ciyaar dhex martay ayaa uu Yusuf Lambasa ku dhaawacmay dhaawaca ayaa waxa uu ka soo gaaray madaxa sidaas oo ay tahayna xaaladiisa waa laga deerinay barigii ugu dambeysay waxaanu yaalay dhakhtarka weyn ee Hargeysa waa kan dhakhtarkii markaa xaaladiisa hayay oo ka hadlaya arrintiisa waqtigaas xataa dareen muu lahayn oo markan eegto waxaana ku naqaano qofka dareenkiisa lagu eego la qanjiriyo kale wax allaale wuxuu dareemayaa ma jirto afartiisa waaxood madaxa alxamdulillah waan ka soo horay wax nabar weyn oo ka muuqda ma jiraan oo CT scan ku soo saaray markan maskaxda ka soo horay imika garashana muu lahayn taan kugu daro waxaan rajaynaynaa markaa dawooyin baanu siinaynaa dhakhtarka la dhigaya observation bay ku sameynaa 24 saacadood inuu ka soo rayo haddii ilaahay raahdo wixii jirana aan ilaa subaxii eegno say xaaladiisu noqoto ugu dambeyntii haddaba Yusuf Lambasa ayaa waxaa loo qaaday dalka dibadiisa gaar ahaan dalka imtixaanka dhexe ee Ethiopia oo xaaladiisa caafimaad lagu soo baxnaaninayay waxaana suuro gashay in saxaafadda gaar ahaan TV-ga bulsho oo la xiriiray safiirka dalka Ethiopia ee Somaliland uga xaal waramo xaaladiisii ugu dambeysay waa hagaag ambassador oo kaaga mahadcelina wareysigaagan shalay tolo waxa soo gaaray magaalada Ethiopia loo soo qaaday dhanka Ethiopia goolahayii xulka gobolka Sool ee Mombasa oo xaalad caafimaad loo keenay bal hadda maxaad ka wareysan xaaladiisa caafimaad aad bay u fiican tahay goor dhaweyd bay safiir ku xigeenka ka yimaadeen iyo wax yarka u jooga waxbarashada taajeegu goor dhaweyd ka soo noqdeen marka dhaqaatiirtina way baadheen waxay yiraahdeen waxba ma qabo nasashu buu baahan yahay kubadda manayo ciyaarin marka caafimaadkiisu aad iyo aad buu fiican yahay talada la siiyay waxa weeye inuu nasto oo uu ma garanaysaa laakiin wax uu ka qaba imaka oo laga daweynaya ma jiro si kastaba ha ahaatee warka soo gaaraya ee uu safiirku sheegay inuu nastaan kubadda bana ciyaarin ayaa waxa uu nabar ku noqon doonaa xulka gobolka Sool taas oo ay aad uga xumaan doonaan sababtoo ah goolhayahan waxa ahaa goolhaye aad u khibrad badan oo dhinac kastaba ka dhisan marka la eego ruuxaanteeda dib u eegno kulankii ay Daadmareed la ciyaareen markii uu dhaawacmay kadib waxa uu ahaa mid sii ciyaaraya oo aan marnaba nasan isagoo oo ku sii ciyaaray adaday waxaanu doonayay inuu hamigiisa sii wado balse waxaad ka muuqatay in kubadda jilicsan ay dhaafiyaan sidaas oo awgeed waxa uu ahaa qof xanuunsan oo haddana sii ciyaaraya markii ciyaartu ay dhammaatayna waxa uu galay koomo saddex mareysay xulka gobolka Sool iyo xulka gobolka Daadmareed runtii ciyaartaasi markay soo dhamaatay Yusuf waxaan geynay dhakhtarka isagoo 13 daqiiqo u jiifay dhaawacii ka soo gaaray ciyaarta socodka haafka hore hase ahaatee markii aan dhakhtarka geynay wuxuu siiyay daawooyin iyo karjibina ayuu siiyay xaafadaanu geynay Yusuf runtii xanuunkii madaxa ka gaaray oo markii dhakhtarka aanu keenay caawa Yusuf marna kooma ayuu galay marna magaranaysa isla maqnaa mararka qaarkood xusuustiisu ma aysan